Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo safar shaqo ku joogay magaalada Brussels ee caasimadda Midowga Yurub oo uu kaga qayb galay shir looga hadlayay ammaanka Geeska Afrika, argagixisada iyo ka hortagga dhibaatooyinka ka dhalan kara falalka ay geystaan, ayaa wuxuu kulan la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Belgium-ka. Kulankaas oo ka qabsoomay safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Brussels ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya Dr. Cali Fiqi iyo qunsulka safaaradda Cali Walaaf. jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Belgium-ka ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka uga xog waramay xaaladda nololeed ee qaaradda Yurub, gaar ahaan waddanka Belgium-ka, waxayna talooyin u soo jeediyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. halka ra'iisul wasaaruhu warbixin dheer ka siiyay safarkiisii shaqo iyo xaaladda dalkii, wuxuuna jaaliyadda ku dhiirigeliyay inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin siday uga qayb qaataan dib u dhiska dalkoodii. ugu dambeyntiina safiirka Soomaaliya Dr. Cali Fiqi ayaa warbaahinta qaranka uga waramay kulankii jaaliyadda iyo waxyaabihii looga wada hadlay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. galabta halkan safaaradda waxaa ka dhacay shir ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo halkan howl shaqo u jooga oo yimid maalintii Arbacada. saaka galabta tan meesha waxaa isku dhaafsaday ra'yi kala duwan oo waxyaabaha Soomaaliya ka socda iyo warbixin dheer uu bixiyay Prime Minister-ka oo xaaladda waddanka Soomaaliya kala hadlay. waxaa kaloo jaaliyadda ka codsaday inay taageero buuxa ay siiyaan waddankooda iyo dowladooda si dhibka jiro ee Soomaaliya maanta ka jiro looga bixi lahaa. ra'iisul wasaaraha oo u yimid shir oo amniga kaasoo bilaawday maalinta Khamiista shalayna soo dhamaaday. runtii waxaa looga hadlay amniga Geeska Afrika, khubaro kala duwan qaaradda Afrika ka timid iyo Yurub iyo Mareykanka oo arrimaha amniga ku takhasusay ayaa meeshaas ka hadlay. fikrado kala duwan ayaa la isdhaafsaday sida argagixisada ay u abuuranto, waxyaabaha ay aaminsan tahay iyo sida loogu hortagi lahaa ayaa laga wada hadlay. shirkaasna shalay galabtii ayuu soo dhamaaday. waxaa shirka soo qabanqaabiyey European Institute of Peace oo hadda director ka noqday ninkii la oran jiray Michael Keating oo ka ahaa Soomaaliya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay SRSG-ga. Tawfiiq Shira Muuse, warbaahinta qaranka, caasimadda Midowga Yurub, Brussels.